caawa waxaynu yeelan doonaa dood aad u adag waxaan isku dayi doonaa inaan muujiyo furfurnaan iyo saaxiibtinimoba waxaana aaminsanahay inaad idinkuna aad qaangaadh u tihiin inaad i dhegeysan doontaan sidoo kale waxaan jawaab siin doonaa Master Didat waayo wuu i challenge gareeyay oo wuu i caraystay Bible-kaygana waxa uu ku tilmaamay inuusan ahayn kitaab barakaysan waxa uuna yidhi Bible-ku uma qalmo wax la aamino maanta oo dhan halkan ayaan fadhiyay anigoo aamusan oo dhageysanayay dhammaan hadalladii uu ku wada hadlayay hadalkaasna runtii aad ayaan ula cajabay oo ula yaabay waayo quraanka ayaan anigu akhrinayay baadirigu sidoo u qiirisan yahay inuu ooyo waxa uga maarsana bal hadda inta aan bal aan idin dhageysiyo because he has challenged me and he has given words that my Bible is not a holy book. He has said that this Bible is not worth believing. And I have been sitting here silently listening, and I'm a little astonished because when I have been reading the Quran, then I have seen that Muhammad, he meant that the Torah and the Injil ought to be looked upon as the message of God. Why do you criticize the Torah and the Injil if the Quran tells you to believe it? Quraanka waxaan ku arkay in uu Muhammad yiri Tawraat kitaabka Tawraat iyo Injil waa in loo aaminaa inay yihiin fariin xagga Ilaahay ka timid maxaad u eedeynaysan markaa kitaabka Tawraadka iyo Injiilka haddii Quraanku idin sheegayo inaad aamintaan waxa aan la yaabanahay sababta Master Ahmed Didat oo sidan oo dhan u caqli badan muxuu adduunka dhan ugu socdaalayaa oo uu kalba wadan u tagayaa isaga oo la dagaalamaya Kristanka طبعا runtii hadana mar labaad ayuu cunsuriyadii hadana mar labaad uu laba bilaabay dooda waxa la isugu yimid in laga hadlo Bible-ka ma hadalkii Ilaahay ba intaas la isku haystay hadana mar labaad buu cunsuriyadii wadana dib u bilaabayo Sheekh Ahmed Didat wadana dib u sii eedeynaya oo ku leeyahay adoo asalkaaga ka yimid wadamo muxuu friendly oo India iyo Pakistan adoo halka ka yimid yaa waxa tagtay South Africa oo hada cadaanka tihiin soo halkaas ka waday South Africa oo cadaanka tihiin madowga aad gumaysanaysan taasaan idin sheegana South Africa international idin ku soo sheegay 1994 bay ka bixi doontaa apartheidkii gumaysiga waxaas hadana halkaas wadana mar labaad uu xamaasad kale uu ka sii kicinaya laakiin doodii wali muuna u gelin marka bal intaan aan iska boodinaa more minutes and I'm afraid you get tired but I will have to take you into something very exciting now. You see why? hadana mar labaad wuxuu galayaa cunsuriyadii ka jirta Yurub oo wuxuu oranayaa cunsuriyada noocaas ka jirta Yurub Kristanku waxay ku xaliyeen iyagoo buugtooda akhrisanaya Bible-ka wax noocaas madana mar labaad uu kala sheekeynaya laakiin ilaa hadda mowduuci muuna u soo dhaadhicin mowduuca markuu soo gaarno wuxuu oranayaa anu waxaan aaminsanahay oo ku kalsoonahay Bible-ku inuu yahay hadalka Ilaahay waxyaabaha uu Didat sheegayna uu leeyahay iska hor imanayaan Didat baana fahmin ayuu leeyahay laakiin Didat muuna fahmin adigu noo sheegayna in la dhahay samahayn isagiina ma sheegayo ma oranayo sidan maahay waa sidan isagiina ma oranayo hadana mar labaad wuxuu soo qaadanaya waxyaabaha uu Bible-ku ku saxan yahay wuxuu leeyahay Bible-ku waxaan u sheegay Quraankuna uu sheegaya Bible-ku waxaan u sheegay sayniskuna uu ku raacay marka wixii uu soo jeediyay Ahmed Didat Sheekh Ahmed Didat kama jawaabayo dabcan ilaan Quraanku Bible-ka ama muxuu kitaabka Tawraat dhamaantii ilaan muxuu shariicadeena ama diinteenu meena weydiin Soomaa Bible-ka waxa leeyahay Bible-ka wixii Quraanka waafaqa ee sax ah waa qayb kamid ah hadalka Ilaahay wixii Quraanka waafaqa way ka soo horjeestaa maxay hadalka Ilaahay ma hadee iyaga ku darsaday marka inta waxa ka dambeeyay wuxuu soo qaadanayaa Bible-ka qaybaha waafaqsan Quraanka iyo sayniska waafaqsan marka inta Sheekh Ahmed Didat kuma haystaba Soomaa ilaan inta Quraankiina uu sheegay Bible-kiina uu sheegay inta waa la isku waafaqsan yahay intaas waa hadalka Ilaahay waa la isku waafaqsan yahay laakiin waxa la isku haystaa waxyaabahan kale khaladaadka ah ee Bible-ku ku jira ma hadalka Ilaahay baa la isku haystaa taas aad marka ilaan doodana ku saabsan tahay
oo qaybtaas laga hadlayay marka waqtigiisa dhan waxa uu ku qaadanayaa waxyaabaha Bible-ku uu sii sheegay ee saynisku cadeeyay waxyaabaha Quraanku ku waafaqay intaas uu ku soo celinayaa waliba dad xastaan doodii hore u soo turjunay ee ahayd Quraanka iyo Bible-ka midkeeba waafaqsan sayniska doodii ahayd hatta xastaan Dr. Zakir wuxuu oran jiray hadalkiisa markuu bilaabanayo anagu hadaan muslim nahay aragtida aan Bible-ka ka aaminsanahay Bible-ka saddex waan u kala qaybinaa buu oran jiray qayb waa qayb sax ah oo hadalka Ilaahay ah oo qaybtaasina waa qaybta Quraanka waafaqda marka Bible-ka waxa ku jira ee Quraanka waafaqa anagu waxaan u tixgelinaa inuu hadalka Ilaahay yahay waayo Quraanka waafaqay qayb waxa jirta sidoo kale Quraanka ka hor imanaysa oo Quraanku sidoo wuxuu sheegay Bible-ku sidoo wuxuu sheegay qaybtana waxaan aaminsanahay maadaama Quraanka ka hor timid inaysan hadalka Ilaahay ahayn qaybta saddexaad waxa weeyaan waa wax uu Bible-ku sheegay Quraankuna kuma waafaqin kamuuna soo horjeesanin manamaka waxbuu sheegay Bible-ku shariicada Islaamku waxa waa sax meena oranin waxaas waa khalad meena oranin way ka aamustay qaybtaas kalena wuxuu yiri waa qayb laga shaksan yahay waxay noqon kartaa hadalka Ilaahay waxay noqon kartaa hadalka Ilaahay ma noqon kartaa labada dhacba way raaci karaysaa marka hadda qaybahan uu sheegayo baadiriga uu sheegayo kale waxa la oran karaa waa qaybihii Quraanka waafaqsanaa ee hadalka Ilaahay qaybtaas kale muslimiintu waxay u tixgeliyaan Bible-ku inuu qayb sax ah yahay ilaa Bible-ku waa kitaab samaawi Ilaahay soo dejiyay qaybta sidoo kale Quraanku uusan sheegin una oran waa sax una oran waa khaladna anagu dan muslimiin nahay mana rumaynayno mana beeninayno waan dhaxdhaxaad baan ka istaagnaa weeyaan macnaha qaybta kale laakiin Quraankii iyo sayniskii labadaba ka hor imanaysa taas tabcan iska cadahay taas maxaan oranaynaa hadalka Ilaahay maaha oo waan diidaynaa okay marka odaygu inta saacadaha dhan uu wada hadlayo hadaan soo koobo intaas lagu soo koobiya tabcan hadda wax faa'iido uma arko waxaanoo qeyra ah iyo waxaanoo emotion ka muuqda iyo waxaanoo xanaaq ka muuqda inaan soo turjino dabcan wax quman uma arag marka saas darteed baan soo koobay oo intaas aan iska booday amen haddana waxaan u gelinaa hadal jeedintii Axmed Didaat waa inaan koofiyada u saaraa Bader Stanley waayo qaab qurux badan oo farsamaysan ayuu dhammaan uga wada baxsaday su'aalahaygii oo qaab farsamaysan buu ayuu su'aalihii aan weydiiyay oo dhan inuu iga jawaabo oo uga wada baxsaday oo uga gabaday boardka ayuuna isku laaqay si uusan uga jawaabin su'aalahaygii oo dhan and he has had us all tantalized with this oratory. And I tell you, give him another clap for that. Give him a clap. طبعا qofku hadii waxa uu la weydiiyo oo aqoon u leeyahayna dawal wareeg iyo iska dawameeris ma galo ee toos buu uga jawaabaa laakiin qofku haduu uusan jawaabta haynin waxyaabo kale ku marmarsiyooda oo waxyaabo kale u sheegaa si uu jawaabta uga baxsado waliba ta xastaan maqraatiga uu horeeyay ka codsaday wuxuu ahaa hadii wax la isku qabsado maqraatiga la keenayo balcaa waxaad i cadeysaa oo maqraati ahaan u keentaa waxay oo Bible ah aan soo sheegay ee faraha badnaa bal i cadeey midkeeba hadalka Ilaahay ah way dhamaantood iska hor imanayaan marka bal waxaanoo Bible inuu i kala cadeeyo oo ii dhaho kan un baa sax ah kuwa kale waa khalad taasaan ka codsaday markii koobaad way بالفيرت تصلنا نسيني حتى هاد محكمة تكتو أو وحقف وحكو أذاني صو لما ركوا وحلقورنا يا مخراتكين إن دي وقف كانوا حكوا سمع مخراتكين هذا مخراتكين ويدو إسكسوا على قورنا يا مركا ضغطا إنه كدو دينا إنه لا نهاي بيبلكم هذا الكلاه هيبة هرتب المخراتية كان كأنه ربنا إنه كدو إنه وا بيبلكين مكان وينات كانت هرتب بيبلك اللي كدو دي. Identify your witnesses, and that's the first question I asked. Here are the witnesses. The exhibits, the Roman Catholic Bible. Do you accept this as the word of God? These twins I showed you, do you accept them as the word of God? This Schofield's Bible, do you accept them? Do you accept this as the word of God? But he says, no, I will answer in my time. His time, he had full time, 60 and more minutes that you know, and the question still not answered. I will answer.
Now let me weliba intii aan hadalkayga ku jiray waxa uu igu yidhi markaan waqti helaan ku jawaabi doonaa haddana waxa uu qaatay waqti 60 daqiiqo ka badan su-aashiina kamuu jawaabin bal tusaale kale aan siiyo Roman Catholic-an aan hayaa waxa uu leeyahay 73 kitaab oo kale oo isaga liftiisa u qaybsamo Professor Soma Saxsani kitaabka adiguna isticmaalaysaana ee uu qoray King James Version isna waxa uu leeyahay oo uu qaybsamaa 6 buug bal fiiri imsa dhaxaysa 7 kitaab oo dhaxaya haddii haddana labadan kitaab taariikh ahaan la eego kan Roman Catholic ah ee yar ayaa wuxuu ka horeeyay oo waqti ahaan uu ka horeeyay oo waqtiga la qoray uu ka horeeyay kitaabkan Bible-ka ah ee adigu hadda haysto ee aaminsan tahay bal fiir marka kitaabkii Bible-ka ahaa ee kala adigu aaminsan tahay ee haysto ka horeeyay hadda waa kii horeeyay ee asalka ah ee Bible-ka laga soo qaadan lahaa 7 kitaab oo kamid ah iska tuurteen oo kaasi wuxuu ka koobnaa 73 kitaab kii 73 ka habad inta dib u bedesheen baad 66 ka soo qaateen 7 kitaabna meeshaad ka tuurteen kitaabada aad tuurteen ee aydan aaminsanin inuu yahay hadalka Ilaahayna waxa kamid ah the book of Maccabees, the book of Judith, the book of Tobias. 7 books you threw out from what your canon as the word of God. In other words, you do not accept the Roman Catholic Bible per se as the word of God. si kale haddaan u dhigno waxay ka dhigan tahay Bible-kan la yidhaahdo Roman Catholic Bible uma aaminsanidin inuu yahay hadalka Ilaahay bal ka waran badkan ku dhageysanaya badariyo bal u sharax Bible-ka maxaad ku diideen maxaad aad u diideen inuu yahay hadalka Ilaahay oo aad u aqbali weydeen waan ku sheegi doonaa I will tell you. My Bible. Just give me my Bible. bal ila fiiriya labadan kitaab ee la yidhi waa mataano dabcan mataano maaha haddana iyagoo la leeyahay waa mataano mid ka mid ah waxaa dib loo maraajiciyey 1922 ka kalena waxaa la maraajiciyey 1917 waayo hadda labadan kitaab la leeyahay waa mataano markaad eegto kitaabka la qoray 1922 ayaa labadooda kitaab ahaan qadiimi ah oo horeeyay marka la leeyahay Bible-ka kitaabkana horeeyay marka la leeyahay kitaabkii kale ka dambeeyay tixgelin ahaan waa uu ka sareeyaa waayo kitaabkii uu waqtigii Ciise uu uga dhawaa tusaale ahaan ka ugu soo dhow waxaa la yiraahdaa 400 sano Ciise ka dambeeyay marka kitaabkii 400 Ciise ka dambeeyay iyo kii 500 sano ka dambeeyay iyo kii 600 sano ka dambeeyay saddexda kitaab marka la isba bardhigo waxa aad u saxiixsan oo xagga saxiixnimada u dhow kitaabka la qoray ama Bible-ka la qoray 400 ama waqtigii Ciise ka soo wareegtay 400 marka taariikh ahaan marka la eego kolba labada kitaabka taariikhda weyn leh ee xagga Ciise u dhow ayaa la tixgeliyaa oo Kristanku tixgeliyaan oo ay dhahaan kitaabkana ugu sareeya marka kitaabkan hadda aan hayo in gacanta ku hayo oo xagga Kristanka marka laga eego noqonaya kitaabka ugu saxiixsan maadaama uu waqtigii Ciise ugu dhawaa waxa uu leeyahay oo uu sheegayaa arrintan ay Kristanku hadda aaminsan yihiin ee ah in Ciise la daldalay oo uu dhintay waxuu arrintaa ku sheegayaa inay tahay arrin khalad ah oo Bible-ka ku jirin No. Sir, in this book here, printed balmadan ay dhageyso waxaad leedahay no laakiin aan ku sheego dhageyso kitaabkan aan gacanta ku hayo hadda waa kan hadda gacanta ku hayo ee uu soo saaray ee uu soo daabacay qof Kristan ah ama brintiile Kristan uu soo daabacay ayaa qoraya waliba daabacad oo kaliya ma aha buugan markii la daabacayay daabacadiisii iyo qoristiisii dambe waxa goobta makhrajka ahaa oo joogay 32 kamid ah culimada ugu sareysa ee qeysyada ah kuwaasay waliba taageerayeen konton kale oo baadiri ay taageerayeen oo fiirsan marka waxa soo caalim Kristan ah isugu tagay buugan oo qoray arrinta aad noodaysid ka soo horjeedana way kugu khilaafsan yihiin oo kuma raacsana halka aad ka leedihiin Ciise waa la daldalina waxa ay leeyihiin Ciise lama daldalin ee samada ayaa loo qaaday
saas ay leeyihiin waliba kitaabka Mark cutubka 16aad aayadda 19aad bisaa ku leeyihiin halkaas ayaan ku joojinaynaa oo insha Allah hadda waxaan u geenaa qaybtii su'aalaha ahayd laakiin waxaan filayaa baadirigu sii socdaa wuxuu doonayay inuu hadlo hadda xustaan formatka loo dajiyay dooda markii koobaad waxay ahayd inaan marka hore 50 daqiiqo hadlo 60 daqiiqana uu isagu hadlo 10 daqiiqana aniguna aan hadlo inta wax ka dambeeyay su'aalaha la galo laakiin hadda baadirigu uu sii kacayaa oo wuxuu doonayay inuu hadlo formatka saasaan isku ogeyn hadda wax ka bedeshay oo leedahay waan hadlayaa kulli waa wadankaagii hadda doonto iska hadal. So since we have a lot of questions that we have to answer, I don't know where the brother comes along now. This is the format. If you remember, the format was 50 minutes, 60 minutes, and 10 minutes. Now we have a right to answer questions. This is, I think, was the format. Unless you want to take advantage, this is your country. Okay. Concerning the طبعا baadirigu uma joojinayo uu iska kacaya hadallo iska bilaabanaya marka ku dhawaad 15 daqiiqo kale ayuu sii hadlayaa oo hadallo kale wax dib ugu noqonaya formaatkiina loo dajiyay qaabkiina uu ka soo horjeesaday no matter ka faa'iideystay qaybtan marka insha Allah halkaas aan ku shaqeynaa qaybta su'aalahan xalqad dambe aan ka dhigi doonaa dabcan waan ogahay qaybtan kulay inay yaraan doonto waqtiga saasna waxa ku wacan maadaama hadallo iska caadifaysanay waxyaabo kale uu maanta dhan u akhrinayay baadirigii oo qaybta hore qaadanayay saadarteedna ay waqti badan naga qaatay marka insha Allah qaybta ku xigta aynu u gali doonaa qaybta su'aalaha iyo jawaabaha sagaalkan kooras midkeed xiiseynaysaa inaad barato manhaj soo koobaya luqadda Ingiriiska manhajkaas oo ka kooban 8 cashir 12 tennis 8 passive voice 8 part of speech conditional tenses iyo report of speech xisaabta secondary schoolska manhajka Somaliland form 1 ama form 2 ama form 3 ama form 4 inaad 4 bilood iyo wax ka yar fasal walba ku barato sidoo kale accounting principles aad si fiican oo detailed ah aad u baranayso sidoo kale accounting softwareska sida page 3 QuickBook iyo Excel accounting iyo sidoo kale book finance ah oo ay ku qoran yihiin in ka badan 400 oo concept iyo analysis buugaas oo ku qoran English iyo Somali labadaba haddaba haddaad koorsooyinkan mid kamida ama laba kamida aad xiiseynayso nambaradan shaashada ka muuqda nagala soo xiriir